wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug ayaa si rasmi ah ugu guuleysatay in maanta la bilaabo hawsha dhismaha iyo ballaarinta qaybta xafiisyada ee wasaaradda waxbarashada waxaana mashruucan dhagax dhigay madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo tagay xarunta wasaaradda. mashruucan ayaa waxaa lagu hirgelin doonaa qayb weyn oo lagu kordhinayo dhismaha wasaaradda taa oo noqonaysa xafiisyada ay ku shaqeynayaan agaasimayaasha wasaaradda si loo dardargeliyo howlaha waxbarasho. wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo ugu horeyn ka waramay dhismaha mashruucan ayaa tilmaamay in baahi weyn loo qabay muddaba in lagu daro qayb cusub wasaaradda si loo hormariyo shaqada wasaaradda sarana loogu qaado waxbarashada deegaanada Galmudug. fakarkanagii iyo waliba himiladii aan kala hayn waxa koow ka ahayd in la hormariyo kaabayaasha wasaaradda waxbarashada oo koow ay ka tahay dhismaha wasaaradda iyo waliba iskuulada sidii loo hormari lahay oo dhisme wanaagsan loogu heli lahay. runtii arintaas iyo qorshaheeda waa kaalin aad u muhiim ah ayuu ka qaatay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye oo markasta aan wada tashi aan ka sameeynay sidii loogu heli lahay resource ama dhaqaale sidii loogu heli lahay waxbarashada ha noqoto macallimiinta ha noqoto dhismayaasha ha noqoto tayeynta shaqaalaha iyo waxbarashada macallimiinta. intaas ba madaxweynuhu runtii aad ayaan uga mahadcelinaynaa taladii joogtada ahayd iyo waliba saamayntii siyaasadeed ee uu ku yeeshay in maanta mashruucan halkan aan ku dhagax dhigayno oo uu runtii hirgalo. madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo dhagax dhiga mashruucan ka waramay ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay tiro mashaariic ah oo Galmudug ka fuliyay sanadkan waxaana uu sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay ku jirto wasaaradaha dowladdu ay ahmiyadda gaarka ah siinayso si loo tayeeyo waxbarashada deegaanada Galmudug sarana loogu qaado tirada dadka waxbarta. farxad bay noo tahay inaan dhagax dhigno maantay xafiisyadii wasaaradda waxbarashada oo runtii baahi badan loo qabay oo arinta baahida waxbarashada ay tahay meelihii lagu adeegi lahaa meel aad iyo aad muhiim noogu ah. wasiir adii wasaaradda mas'uuliyiinta wasaaradda iyo dhammaan waa idin mahadcelinaynaa sida aad uga soo baxdeen uga shaqayseen ugu diyaarsan tihiin inaad dib u dhistaan xafiisyadii muhiimka ahaa ee lagu adeegi lahaa ama loogu shaqeyn lahaa wasaaradda waxbarashada. halka dadaalkiina ka sii wada annagoo runtii u mahadcelinaynaa mashruuca GPA u mahadcelinaynaa waxaan leenahay baahidu intaan waa ka badan tahay codsiyo badan iyo baahiyo badanna waa gudbi doonaa hay'ado kala duwan iyo mashruucyo kala duwanna waa la xiriiri doonaa. tanna waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday oo noo qabsoontay waxaan ognahay inay meel yar aad u yar ku shaqeynaysay wasaaradduna ay tahay wasaaradaha ama wasaaradda noogu muhiimsan Galmudug. aad baan uga mahadcelinaynaa uguna faraxsannahay inaan haysanno ama helnay xafiisyo waafi ah ku filan dhammaan lagu fulin karo adeegyada u baahannahay. wasiir si waan hubaa wasaaraddu inay tayo leedahay hufnaan leedahay markii tan lagu guuleysto waxaan u gudbi doonaa meelaha kale iyo baahiyaha kale waxbarashada wasaaraddiina sida gaarka u quseeya waxaan leenahay ku guuleysta annagoo runtii mahad badanna ka celinayna. wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa ka mid ah tiro kooban oo wasaarada ah kuwa oo leh xafiisyo rasmi ah oo ay ku shaqeeyaan waxaana wasaaraddan ay horey u hirgelisay xafiisyada gobolada iyo kuwa degmooyinka oo la geeyay dad loo shaqaaleeyay kuwa oo ka shaqeynaya muddaba kormeerka iyo ogaanshaha waxbarasho. Abdullah Warsamar Somali News TV Dhuusamareeb.